السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا وحقي سورجشي إن وريس كويا شمال روما نعيم أبو بكر أوكميتا أوركا سومالتوس إديك مجال روما. نعيم أقصد تي في عالم مليون رسالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا هاي محمد روبرتو. نعيم إن أوركا سومالتوس خيبتكو أدن حق وتعطي. شغلي دقارك إيه كسكو أنا وحن قبل سنة لنا ترجمانك. ترجمانك محاكمين حتى ترجمتها أو ترجمتها waxaan u turjubaanaa Soomaalida ku dhibaataysan wadanka Talyaaniga gaar ahaan wadanka Roma haday noqoto dhinaca maxkamadda haday noqoto dhinaca isbitaalka iyo haday noqoto dhinaca asiila politikada oo qaxootinimada oo qaabilaada wadankaanaytii naciim dadka turjumaanka ah badi waxa lagu eedeeyaa in ay si xun wax u turjumaan halu soo eedeey in si xun dadka u turjumaan arrintaas maxaa ka leedahay way adag tahay sida ay ku dhacdo eedeyntaas oo kaleete laakiin waa laga yaabaa marmar inay dhacdo aniga hal example aan haystaa hal wiil Soomaali ah oo dhibsaas camal ku dhacayo waxyaabo yar yar oo qaldameen laakiin markii aan saxnay ka bacdi wixii dhan ay dhamaadeen naciim qofka turjumaanka maxaa lagu doortaa ma cilmi waxbarasho lagu doortaa مدة شروط لو دور خوف ترجمانك haddaan ka hadlo dadka turjumaanimada sida lagu doorto aniga barzeembiyo tusaale ahaan hadaan u soo qaato waxa la igu qaatay iskool waxaan dhameeyay oo luqadda Talyaaniga waxaan watay shahaado luqadda Talyaaniga iyo inaan wadankan aan muddo badan joogay oo hadana aan haysto dhalasho Talyaani intaas la igu qaatay shuruud laga dhigaa inuusan wadankan dambi ka gelin inuu luqadda si fiican uu ka saayo fluent mother lingua amal ay tahay luqadiisa labaad iyo inuu fasax u haysto oo waqti uu ku turjumaano uu haysto kharashka yaa bixiya turjumaanka yaa siiya kharashka turjumaanka waxa siiyo qarashka dawladda Talyaaniga qaas ahaan hadii maxkamad ay tahay maxkamadaas siiso hadii tahay maxaa la isbitaalada ayaga bixiyaan gooni ahaan marka saas way laakiin kulligeen waxaan hoos imaanaa wasaaradda maaliyadda naciim aad maasantay warbixinta asasay ee shaqo wanaagsan adaa mudan maxamed roberto sidoo kale waxaan wax ku weydiiyay arrimaha ku saabsan Soomaalitus nimca Saudi ee degan magaalada Sicilia iyo waliba Saadaq qabeeladiid oo asagana degan gobolka Emilia Romagna iyo sidoo kale Nuurta Abbas oo aydan degan magaalada Roma waxa waliba ii soo gashay in aan waris gaar leeyasto nin qofka soo asaasay ururka Soomalitos Ahmed Sheikh Ibrahim oo degan magaalada Roma وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وسيدة أتشيكتي محمد روبرتو واد مهاتسنتي ولالو مقعيقو وحويا نعيم السودي ما شاء الله وحانتكم مهاتسنتي كون شير ساديقو ساعسونتي يوروفيرسال تي في ما شاء الله آدي بانكاغا مهاد علينا حتان وحكاغا تلمامو صومالية توس وجهليد aad u ballaaran gobolada Italiya oo dhan ka kooban hadda anoo kale waxaan joogaa Sicilia gobolada Italiya oo dhan waa la joogaa oo Soomaaliya toos gobolada Italiya oo dhan bay ka kooban tahay ma sha Allah waa jahliyad aad u weyn on aad anigu uga helay ma sha Allah yon aad uga helay waayo yacni waxyaalo badan oo qabatay waxyaalo badan oo qaban doonta insha Allah waxyaalaha ay qabatay waxa kamid ah sida maxay hadda abaarihii dhacay oo kale sida dadka dhalinyarada nolosha ka dhacday ee wadanka laga celinayo kale sida dadka dhaqaatiirta yaalo oo la caawinayo kale matalan sida dadka soo galeetiga markay soo galaan oo kale la caawinayo ma sha Allah jaaliyadeedu aad iyo aad bay u ballaaran tahay maxay ahayday hadda gabadh baa dhakhtarka noogu jirta waxaan rabnaa inaan Soomaaliya u celino maxay ahayday lawyer iyo waxba noo qabanay hadda inaan kala noo yaalo oo jeel noogu jira ma sha Allah adigu hawsheedu ma yara hawsheedu way socotaa cidina ma caawiso annaga is caawina jeebadayadana iska caawina ma sha Allah annaga hayadina ma caawiso annaga isku hayada haddana Soomaaliya toosnahay marka aad iyo aad baan ku salaamayaa Maxamed Roberto waanad ku mahadsantahay sida walaalo TV-ga igu soo dhaweysay Universal
aad baan kaaga mahad celinayaa. Assalaamu calaykum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى السلام دمان أمد الصوماليات ملكستو جوكتان مقعي وصادق قبيال الديد وحان كميدا هاي أروركا صومالية توسا كان ميدا قديك برتكولكا وحان كميدا هاي حيمناها أفديو حيمن كميدا قبل كان إيميل رومانيا غارهان مقال ليراه بارما حيمنا كلوبي جران أروركان أفديو سيدا فورلي إيو بولونيا ururkan Soomaaliya toos magaalada aad deganahay ee Barma si fiican loogu soo dhaweeyay si fiican loogu taageersan yahay waana soo dhaweeyeen waana arin lagu farxo in goboladan Talyaaniga laga hirgeliyo jaaliyado ama urur isku duuban ee gobolada Talyaaniga oo dhan ka tirsan waa maasantii. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maxamed Roberto waa mahadsantahay. magacayga waxa waaye Nuurta Cabaas Busuri ku nool wadanka Talyaaniga qaasatan Roma waxaan ka tirsanahay ururka Soomaaliyeed tooso aan ka tirsanahay ururka Soomaaliyeed tooso wax qabadkeeda waxa kamid ah oo ururkan u sameeysanay in walaalaheena Soomaaliya oo meel kasta joogo oo Itaaliya gudaheeda ku nool oo ku dhibaateysan inaan wax ugu qabano qofna ma naga caawinto annaga is caawino annaga jeebkeena isku caawinaa annaga jeebkeena wax isugu qabanaa aan walaalaheena wax ugu qabanaa waxa mahad leh oo maanta aan u mahad celinayaa oo ururkan noo abaabulay aas-aaskiisa adeer Axmed Sheekh waa mahadsan yahay ajri xasanad Allah أحمد شيخ إبراهيم وحتى مثل وحتى هاي قفك أساسي ururkan Soomaaliya toos dadka Talyaaniga gaar ahaan magaalada Roma marka hore maxaa kugu dhaliyay in ururka asaasay waa mahadsantahay Maxamed Roberto waa su'aal muhiim ah waxa igu dhaliyay anagu halkaan aan joogaa Itaaliya Roma ka joogaa magaalooyinkaas kale oo Itaaliya ka taamartay Itaaliya dhamaanteed magaalooyinkaas anigu ma tagin laakiin waxa dhacday hab baafis ah dad baa maartay nagala soo hadlaya Soomaaliya Afrika dhamaan adduunka meesha Soomaalida inta ku kala fiirsan tahay oo dhan dhibaato ay meeshan ay u qabaan dad baa la baafinaya qof baa isbitaal ku jira qof baa maartay meel cidla taagan qof baa lacala imaan doona haddii aad la weydiiyo yaa Milana jooga Milana saas qof baa imaana qof baa isbitaal ku jira qof baa ku dhintay qof baa noocaas Sicilia dhamaan Talyaaniga tuulooyin yar yar oo aan weligay arko maqal marka waxay noqotay inaan baafiyo meeshaas laga sheegay oo dadkaas wax laga doonayo yaa jooga inaan Soomaalida weydiiyo inaan baafiyo magaalooyinkaas yaa jooga qofkii jooga oo Soomaalinimada ku fiican in arintaas u dirno hawsha haday socotay muddo socotay waxa laga maarmaan ugu noqotay inaan hadda meelaha wax lagu sheegayo qofkii hawshaas hadda koor qabtay ama hadda ka bacdi la sheegay inaan dad adigu Soomaalinimada ku fiican aan group WhatsApp u wada sameeyo meeshaas adigu dadkii waa bateen iyaga maartay hawshii ka bacdi maamulka sii watay iyaga group noqdeen iyaga qofkaas meesha jooga yiraahdeen wixii markay soo bateen oo adigu hadda 100 saa'id noqotay iyaga go'aansadeen in maartay ay urur registeraraysan oo Talyaaniga inay maartay go'aansadaan okay Axmed wax qabadkiina maxaa kamid ah wax qabadkeena oo asaasanaga waxay ahayd dadkeena dayacan oo Talyaaniga meel kasta ka joogta ama xanuun leh ama dhimasho leh ama qariib leh dadkeena fiican inaan maartay caawino saasa markeena hore ujeedaduna ahayd waxbaan qabanay oo ah inaan dadka wixii la badbaadi karo dadka sida qaarkood nolosha ka dhacay oo ogol in wadankoodii u noqdaan voluntary ah dadkooduna ay sugayaan hadday dhaqaale leeyihiin oo iyaga dhaqaalahooda dadkooda familkooda ay ka bixinayaan inaan sidii kale dokumenti ugu sameeyno caawino haddaysan waxba awoodina inaan maartay tigidhka go-homka iyo jid markiisa aan siino oo saas reerihiisa isku geyno inaan maartay dad isdoondoonaya Itaaliya dad jooga oo dadkoodii muddo iyagoo yar meeshan ku soo karayoona familiadoodii aan hayn iyo goor ugu dambaysan aqoon oo xataa luqadii ku raadi lahaayeen aan aqoon inay maartay noo yimaadaan oo dadkoodii u raadinay aan isbarnay oo Soomaalidaas ay soo dhaxgaleen markana luqadiina ku barteen
iyo wixii meel kale talyaaniga dibadiisa wax naga warsada inaan maartay dadkii waxay u doonayeen qaarna u helay qaarna u weynay hawleena saas way hadda bay idin caawino yaa garba idinka sii arintaas kharashkii bixi waxna caawinina male dadna maartay annaga jeebkeenan isticmaalna ma gaarsiisnin in maartay aan meel kale wax ka helo annaga iscaawina muxuu ahay awood fiican oo dhaqaale group madax banaanati group madax bannaan maartay dawladdu ma xiriirsana urur oo maartay Soomaaliyeed oo madax bannaan oo jeebkooda isticmaalana xitaa annaga isnaqaana ilaa hadda waa registraraysannahay oo waa ka qoranahay maartay waa iska qoran laakiin in la sii barto waxaan jirnaa hadda 2 sano jirnaa wax dhiman laakiin meel badan baan ka soo maartay dalka dibadiisa aadan laga soo waca talyaaniga gudihiisa meelihii la jiro maartay laga soo waca Yurubta dhexdeeda adigu hadda waxaan leenahay xoogaa waana la ka warhayaa meel badan aan la ka soo waca ayagoo dadka baahidooda iyo dhibka ay qabaan maartay inaga noo soo sheegay waxa maqluhu ah in dad badan talyaaniga joogo ku dhibaataysan in wadada u dirtaan wadankooda dadkaas waalidkood miyaad la xiriirtaan mise aan idinkiya iska fikra iyo maya marka u horeysa oo qofkan dhibaataysan aan aragno waxaan horta marka hore doonaa waa anaga isu sheegna qofkana saas xanuunsan qofkana derbigan jiifa qofkana xoogaa qabasho laho fikirkiisa inuu cidiisii u noqday waxa raba markaan qofkaas la garano oo qofkaas qof la diri karo maartay diyaar yahay oo dantu haysan waxba awoodin aan maartay u garano waxaan raadinaa baafinaa haddii isagu teleefankeeda iyo wixii noocaas cidii familkiisa aan warsanaa haddii uu maartay hab kale aan u raadino adigu dadkiisa waxaan isku maartay kalifnaa inaan dadkiisa helo dadkiisa aan la helin oonan idan ka haysan ma badiri karnaba ilaa hadeer ma qof dhoofisan u dirta wadankii wallahi hadda ururkan intuusan magacaan oo Soomaaliya toos ahayn ee Soomaalinimada kaliya ahayd waan filayaa ilaa 20 qofood inaan dirnay oo dirta Soomaaliya iyo maartay meelihii kale iyo Nairobi iyo hadda cid family oo islaaliyo 3 ruux oo iyo labadeed gabdhood ilaa Tansaaniya u socdeen ay ku dhasheen oo Soomaalida halkaas ay hayeen meeshana ku dayacmay waa u dirnay maartay Nairobi aan gaarsiinay looga hor yimid meeshaas ay sidoo cidooda ku nabad galeen ururka mowqifku ka kooban yahay noqotiin sidii ururka sida la socoto meeshan dadku hadday xoogaa ayaana dana dhamaystaan dadna waa dad degan dadna xoogaa waqti si joogana si shaqaystaan laakiin number aad u fiican tirsigiisu ilaa adigu 150 oo gaarsiisan yahay laakiin waa laga yaabaa qof muraadkiisa dantiisa u dhamaaday oo Yurubtaas kale meel uga dalbanay inuu aado hadda aadana wali waana la xiriirsan qaarkood waana la xiriiraan ilaa hadda waxaan ku qabnaa Sicilia iyo Reggio Emilia iyo Roma Napoli idin joogo Napoli waxa noo jooga group dhanba jooga oo gudoomiye u yahay Cali Sheekh nin la yiraahdo Napoli asaga noo jooga Toscana meelina wax nooca masadan magaalo soo qaata Firenze oo kale qasti baa noo joogta Luka waxa noo joogta muxuu ahay Safiya Xaaji Cabdulla Safiya halkan ku magac dheer gaduudo nin la yiraahdo gudoomiye nooga Beruuja gobolkaas Umburiya sagaas noo qaabilsan magaalooyin badan baado baan joognaa hadda sida ku xiriirtay dadkaas waxaan ku xiriirnaa qaarka dadka xoogaa waayeelada ah oo WhatsApp-ka isticmaalin waxaan noo qoran magacyadooda wayna soo wacaan see la yahay bayna dhahaan annaga wacna arrintaas jirta qaaran bilaad baan leenahay inta waa habaysanahay sidana kale waa aad aan u habaysanahay sidaan u xiriir lahayn iyo gudiyo waa jiro maartay waliba magaalooyinka dadka gudiyada magaalooyinka ay degan yihiin ku firsan yihiin Ahmed aad bastay sheekh wanaagsan وما حسنتهاي محمد روبرتو دمان شغالها يونيفرسال تي في هي دمان ururka Soomaaliya toos meel kasta ay joogaan intii dhageysanaysa intii ijeeda dhamaan waa salaamantii kaas huwa Ahmed Sheekh Ibrahim oo degan magaalada Roma Ahmed Sheekh waxa lagu amaanay wax qabadka iyo dadka uu caawino kii dhibaataysan iyo waliba kii doonay wadankiisa aado Maxamed Roberto TV ga caalamiga universal ee Roma